lama filaan ah waxay hadba dhinac ula safanaysay dhinacyo wadamo xiriir diblomaasiyadeed isku haya oo isku xumaaday bishii Abriil sanadkii 2015 waxaa dawladda Soomaaliya ay kula safatay Sacuudiga markii khilaaf siyaasadeed oo salkiisu uu ahaa arrimo xuquuqul insaanka uu Sacuudiga iyo Sweden soo kala dhexgalay xilligaasi Soomaaliya waxa ay la barnoqotay Sacuudiga si lamida bishii Janaayo ee sanadkii 2016 waxaa dawladda Soomaaliya ee yara xilligaasi jirtay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si degdeg ah ula safatay Sacuudiga iyada oo markaasi Iiraan ay isku qabteen arrimo gudahooda ah laakiin Soomaaliya markii dambe ay sheegtay in faragelin ay Iiraan ku sameysay arrimaha gudaha ee Soomaaliya isla markaasina 24 saac gudahood ay uga baxeen Soomaaliya muwaadiniin Iiraan ka joogay waxaa xilligaasi xigay khilaafkii xoogganaa May 2018 dhexmaray Sacuudiga iyo dhowr wadan oo dhinac la ah oo xulufadiisa ah iyo Qatar oo dhinaca waxa xilligaasi qalqal galay oo istaagay hanaankii shaqo ee jawiga dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii dawladda Soomaaliya ay muddo aad u dheer la tacaalaysay dhankii ay raaci lahayd waxaa dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay ka tahay dhexdhexaad khilaafka labadaasi dhinac oo aysan dhinacna raacsaneen inkastoo Sacuudiga uu ka dalbaday in ay dhinac la noqoto dawladda Soomaaliya taasi oo iska dhagatirtay waxaana dad badan ay u fasirteen dawladda Qatar oo Soomaaliya xiriir qoto dheer mas'uuliyiinta qaarkood uu kala dhaxeeyay taasi oo keentay in Soomaaliya ay dhinaca Qatar raacdo iyo sidoo kale dawladda Turkiga oo Qatar ay isu dhawaayeen waxaa sidoo kale taasi xigtay khilaafkii asna ku qotomay xuquuqul insaanka ee dhexmaray Sacuudi Arabia iyo sidoo kale Canada bishii Agoosto ee sanadkan markaasi oo safaaradaha ay kala qaateen labadan dal oo midba udub dhaxaad u ah dhaqaalaha iyo taageerada dawladda Soomaaliya markaasi waxa ay barbar la noqotay Sacuudiga wixii intaasi ka dambeeyay waxaa soo baxay warqadii shalay si degdeg ah uga soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo lagu sheegay in Soomaaliya ay la safan tahay Sacuudi Arabia oo qalqal iyo cabsi gelin ay ku hayaan dawlado kala jiritaankeeda waqti wadankaasi Sacuudiga uu haysto culays uga imaanayo dunida kale ee caalamka oo ku qotomo wariyo u dhashay dalkaasi Jamaal Qashaaqi oo muddo lagu dhexlayahay safaaradda Sacuudiga ee dalka Turkiga oo uu galay bishani labadeeda taasi oo loo badinayo ilaa iyo waqtigan inuu soo bad qabin oo la dilay haddaba maxay ka dhigan tahay xiriirka caalamiga ah in dal kale uu garab istaago marka ay timaado siyaasad ku qalloocan amaba ku adag Cabdikariin oo Cali Cumar waxa uu ahaa safiirkii Soomaaliya u joogay dalkan Mareykanka iyo sidoo kale wadanka Canada oo uga sii horeeyay intii aysan dawladii dhexe ee Soomaaliya aysan burburin wixii ka horeeyay 90-maadkii dawladdu saaxiib bay leeyihiin waxay leeyihiin dawlad si gaar ah saaxiib u ah ama ha noqdaan isku mandaqad ama ha noqdaan sida dalalka carabta oo kula jirno ururka carabta ama Arab League ama kuwa Afrikaanka oo kula jirno African Union marka xulufooyin baa jira adduunka ka jira marka dawladahaas xulufadatiin usually way taageeraan sida inta badan hase ahaatee taageeradu meel ilaa kama timaado taageerada waa in lagu weydiistaa adigu taageerada lama soo volunteer ma soo dirayso inta soo ordo ma dhaysaan taageerada waa inay wax ku dhisan tahay nuxur inay leedahay sal inay leedahay wey marka waa in dawladdu taageeraan wax lala yaabo ma aha wax caadi waa diblomaasiyadda laakiin haddana taageeradu waa inay sabab leedahay ujeedada u taageeraysa mar walba waa inay ku salaysan tahay danta dalkaaga dhanka istaraatiijiyada ama dhanka dhaqaalaha wax adiga dan ku ah inay ku Soomaaliya oo aanan yeelanin dawlad dhexe oo xoogan waxa ay muddo ku soo shaqeynaysay taageerada dhaqaale iyo midka military ee ka heshay wadamada saaxiibka la ah ee ku jira midowga Afrika jaamacadda Carabta amaba caalamka reer galbeedka intiisa kale haddaba taasi salmo u tahay in taageero aan loo meeldayin oo degdeg ah mar walbaba Soomaaliya ay wadan kala dul dhacdo oo la soo boodo maadaama dawlad xoogan oo kaligeed isbixin karta waqtigan aysan ka jirin wadanka su'aashaasi waxaan mar kale weydiiyay ergeygii hore ee Soomaaliya ee Mareykanka Cabdikariin oo Cali Cumar waa su'aashaan way jaara Soomaaliya dib baa haysta dalka Soomaaliya waa haysta bangiga tasriiga dal haysta siyaasiyan Soomaaliya waa dal xor ah oo konton iyo 8 sano xor ah hase ahaatee Soomaaliya waxaa rabaa dadka Soomaaliya u sheego dhageysanahay Soomaaliya dal ciidan ajnabi joogo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ma noqon karto mid madax bannaan in ay u shaqeyso dalal kale markaan saan leenahay Soomaaliya dhibaatada hayso Soomaaliya mas'uulka anaga mas'uulka Soomaaliya waa la haystaa kumana madax bannaan siyaasadeeda go'aan karo ayadu iska malaha markaan saan leenahay waxaad arkaysaa tallaabooyinka dawladihii isaga dambeeyay ay qaadahayeen oo nasiib darro runtii
ood moodo inay u shaqaynayaan ama u adeegayaan dana dalal kale iyagoon waxba dhaafsiisan actually go-aankaas. laakiinse aragtitaasi ka duwan waxaa qaba Cabdicasiis Caraale oo ka mida macallimiinta wax ka dhiga mid ka mida iskoolada ku yaala magaalada Minneapolis, kaasi oo sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee dawladaha u dhaxeeya uu yahay mid ka dahsoon inta u muuqata dadweynaha. waxaa jira waxyaabo kale oo dadka caadiga ay ogaan karin oo ay kamid tahay heshiisyo caalami ah oo dawladda Soomaaliya ee dawladihii hore ee Soomaaliya markii laga soo bilaabo 60kii ay la galeen wadamada qaar sida anaga oo uga mid nahay jaamacadda Carabta oo kale. waxaa jira waxyaabo oo marka nagu qasbi kara inaan dhinac aadno. dhibaatada hadda jirta ma aha waxa kaliya arrin ka timid burburka kaliya ma aha. waxaa jiro waxyaabo oo national security reasons ay dawladda ay ku qasban tahay inay gaarto. si kastaba ha ahaatee mar kasta oo Soomaaliya ay dhinac la noqoto waddan kale khilaaf uu kala dhaxeeyo ayaa taasi waxa ay keentaa su'aalo badan oo dadka Soomaaliyeed ay iska weydiiyaan jiritaanka dawladnimo ee Soomaaliya. aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan nooga diyaarisay xaaladda iyo